afrika waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay meelaha ugu musuqmaasuqa badan caalamka, waana waddamo inta badan soo koraya. kadib 1991dii burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo madaxweyne ka ahaa allaha u naxariistay Generaal Maxamed Siyaad Barre, waxaa meesha ka baxay heekalkii dowladnimo, waxayna Soomaalidu wajaheen xaalado murugo iyo naxdin leh ka gadaal markay door bideen inay ku noolaadaan xasilooni darro, colaad iyo dagaal aan dhammaad lahayn, taas oo sii dhaxal siisa 22 sano oo la waayay ummad fikirta oo ka talisa aayaha ubadka Soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda. sababaha ugu waaweyn oo caqligii wanaagsanaa ee Soomaalida fasax dheer loogu dira ayaa ah qabyaalad gaamurtay oo ka shidaal qaadanaysa jahli, dagaal aan ku dhisnayn wax micno ah, siyaasado isdiidan iyo arrimo badan oo kaalin libaax ka qaatay horinta iyo xasilooni darrada Soomaaliya. nabad daridu waxay ka timaadaa nabad badan oo ugu dambeyn dadka u keenta khilaaf, sida kaba muuqata dunida Carabta iyo kuwa Afrika, waa sida ay qabaan qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed. adduunka horta marka intaan joogno xukun oo boqolkiiba boqol oo nasiiha ma jiro, laakiin waxaa la fiirinaa muqaarana waxaa lagu samaynaa xukunku inta uu hufan yahay iyo inta uu musuqmaasuq yahay. haddii uu helo boqolkiiba 51 hadduu helo oo hufnaana, laakiin 49 oo qashina oo wato waa socon karaa. laakiin markii ay boqolkiiba 51 ay noqoto wax isdib marin 49 ay noqoto hufnaan xataa waa duma iska dhaaf anaga keenna wuxuuba ahaaba 99.99 ayda. warbixino ay qoreen hay-ado caalami oo ka faalooda arrimaha musuqmaasuqa ayaa dhowr jeer oo isxigta Soomaaliya waxay ku tilmaameen inay ku jirto wadamada ugu musuqmaasuqa badan caalamka, halka siyaasiyiinta Soomaaliyeed lagu xanto inay ku caanbaxeen wax isdabamarin. musuqmaasuqa ma ahan oo keliya lacag la isdabamariyo ama la lunsado, balse xilalka dawliga ah oo qaab qabiil loo qaybsado iyo qof walba oo la siiyo wuxuusan u qalmin ayaa ah musuqmaasuqa ugu weyn ee ka jira Soomaaliya, waa sida ay qabaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. magacaygu waa Axmed Abuukar Ashari. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc la xiriira musuqmaasuqa, waxaana barnaamijka marti igu ah Xasan Sheekh Imaamka oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed oo wax ku bartay waddanka Malaysia. daawasho wanaagsan. aad ay u mahadsantahay Xasan Sheekh Imaamka, waqtigaada qiimaha badan waa kaaga mahadcelinaynaa. waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Kalfadhi. su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay waa maxay musuqmaasuq, Soomaaliyana halku uga yimaado musuqmaasuqa? bismillaahi raxmaani raxiim. asal ahaan ereyga musuqmaasuq afka Soomaaliya kuma qeexin, laakiin waxaan dhihi karnaa wax maanta qeexinaaye wax isdibmarin iyo maamul guracad. ama si kale haddii loo dhigo musuqmaasuq wuxuu ka jiraa miisho oona ka jirin maamul hufan. maxaad ula jeedaa maamul hufan? maamul hufan waxaa loola jeedaa maamul qaanuunku shaqeeya loola jeedaa, yacni ay dadku ku qanacsan yihiin. ay ku qanacsan yihiin. meel alla miisho aan qaanuunka uguna shaqaynayn maamul hufan kama jiro. musuqmaasuqu ma ahan oo keliya lacag la isdabamariyo ama dowlad lacag dhacdo oo keliya. waxaa jira aqoon-yahano Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ka timaada oo markay dalkii tagaan xilal loo siiyo qaab qabiil ama si dadban ku hela xilal. soo lansma dhihi karo aqoon-yahanada oo qaab qabiil loo siiyo xilal waxa ay la micno tahay musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya. okay waa taa, laakiin aan dib u laabana waxoogaa yar Soomaaliya aan dib ugu laaban taariikhda aan Soomaaliya ugu laaban sida aan u sheegnay maamul hufan aan dhahnay moogtahay. marka su-aashu waxay tahay mar kale aan ku laabanaynaaye Soomaaliya hore ma u soo martay maamul hufan? uma soo marin. hadday Soomaaliya maamul hufan soo mari lahayd meesha ay maanta tahay lama aadi lahayn. marka wax isdibmarintan iyo maamul hufnaan la-aantu waa dhaqan soo jireena oo dalka Soomaaliya ka jiri jiray. xaguu ka yimaado waa su-aal kale. marka haddaan dhan xaguu ka yimaado waxaan dhihi karnaa dalka Soomaaliya maamulka hufan maqnaanshihiisu wuxuuba la dhashay dhalashadii dowladnimada Soomaalida. oo dhibaatada dhacdaa waxay tahay dalka Soomaaliya dabcan Soomaaliya waa la qiibiyey, dib uma laabanayno. Faransiis oo meel qaatay, Ingiriis oo meel qaatay, Talyaani oo meel qaatay, Axmaar oo meel la siiyey. laakiin waxaan ka soo qaadaynaa qaybta ugu weyn Soomaaliya oo dadka ugu badan Soomaalida iyo dhaqaalaha ugu badan iyo maamulka laga sameeyey waa qaybtii Talyaaniga. Talyaaniga ayaa wuxuu ahaa nasiib darrada lagu dhacday waxaa ka mid a in qaybtaas oo muhiimka ah dalka Soomaaliya la dhahay Talyaaniga gumeysta ama Talyaaniga la dhahay dowladnimad bar. Talyaanigoo ah waddanka Yurub ugu liita
ilaa yowmina hada konton sano ka hor maaha ilaa yowmina hada waddanka ugu laaluushka badan ugu maamulka xun ugu isdibmarinta badan oo talyaaniga ayaa marna ingiriisku u dhiibay mar kalena wax la dhaho jimciyadda qurumaha u dhiibeen marka maamul hufnaan la-aanta iyo xumidu waxay naga soo galeen talyaani dalka soomaaliyana cudurrada dumiye waxaaba ka midaba in dalka soomaaliya uu nuxurka ka cunay dhaqankii talyaaniga ee ku dhisnaay wax isdibmarinta iyo maamul xumida haddaan ka soo gudubno talyaaniga dowladdii la sameeyey lixdankii waxay ahayd dowlad aan lahayn hufnaan dowladda waxay ahayd ku dhisan wax isdibmarin iyo mataqaanaa musuq maasuq ka soo gudub askartina wayba ka fool xumaayeen civilianki lianno at least civilianku waxay lahaayeen dastuur oo copy ambasti ah oo talyaani laga soo koobiyey oo la keenay oo lagu qoray meeshii ku tiilay Italy laga tiray ee lagu qoray Soomaaliya bayba lahaayeen waqtigoodana waa koobnaayo 4 sano maray doorasho gelayeen waa cabsanayeen dadku waa hadli kareen askartu way mideen buduqay wateen qaanuunkii ay tuureen oo talyaaniga noo soo koobiyey meesha ka tuureen bunduqay la yimaadeen qofkii hadla inay dilaan ay xabad ku dhuftaan maamulkoodana waxay ku sharciyeysteen musuq maasuq iyo hufnaan la'aan iyo wax isdibbarin imaamka adigu aad u mahadsan haddaan usoo laabano su-aasheena aqoon-yahanada oo qaab qabiil loo siiyo xilalka soo la isma dhihi karo waa qayb weyn oo ka mid a musuq maasuq okay horta aqoonyaha horta maanta hadda la joogo saacadan la joogo oo 2015 horta Soomaaliya marka laga hadlayo xaqiiqada laga hadlayo Soomaaliya aan ka hadalna ma jirto marka xaqiiqada ka hadlayo maxaad ula jeedaa Soomaali aan ka hadalna ma jirto Soomaali aan ka hadalna waxaan ka wadnaa Soomaaliya marka la dhaho Soomaaliya sida ay jamciyadda qurumaha u aqoonsan tahay oo 194 wadan aan uga tirsannahay oo geeska Afrika aan maab ku leenahay cid maamusha oo mas'uul ka ah maba jirtaba dowladnimadu afar rukuma afar shay 1 2 3 4 mid ka mid ah hadii la waayo dowladnimadu waa maqanta okay ko waxa ah dhul xadidan oo la isla ogyahay labo dad isku ujeeda ah saddex maamul leh awoodda adeegsiga awoodda kaligiisa afar xiriir caalamiya oo kala dhaxeeya dowladaha kale afartaas haddaan usoo laabano maanta dal la dhaho Soomaaliya marka la dhaho si fiican u dhegeyso khud baale waxaan ka wadnaa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay ka leeyihiin badweynta Hindiya badda la soo wato Indian Ocean ka la geeyay badda cas lagu socodsiiyo xuduudda aan ka leenahay Djibouti iyo Soomaaliya la geeyay saas xuduudda loo marsiiyo Ethiopia lagu geeyo xuduudda Soomaaliya Ethiopia la soo marsiiyo 1600 kilomitir lagu geeyo mid aan leenahay Kenya oo 800 oo badda la geliyo intuu dhaxaysa waxa la dhahaa Soomaaliya intaas waxaa la rabaa inay yeelato dawlad leh awoodda ilaalinta dhulkaas oo haddii lagu soo xadgudbo berri iyo barran iyo jawan oo difaac karta lama hayo number 2 waxaa la rabaa dadka ku nool dhulkaas asaga ah xuduuddaas ku nool inay leeyihiin common political will ujeedo siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed oo midaysan lama hayo saddex dhulkaas asaga ah dawladda maamusha waa inay jirtaa dawlad maamusha oo leh awoodda adeegsiga ixtikaar istikhdaam alquwa waxa la dhaho adeegsiga awoodda oo sharci ah dabcan dawlad leh ma jirto afar dhulkaas asaga ah oo jamhuuriyadda Soomaal ah ama Republic of Soomaaliya ah waa inay jirtaa ama uu leeyahay hal albaab oo caalamku ka soo galo oo na ka baxo ayaguna ay caalamka kala xiriiraan ayna ka soo baxaan Soomaaliya hadda kama jirto saas darteed marka aan xaqiiqadu isaas tahay su'aasha aad soo jeedisay ee adinka leedahay ma waxaad u jeedaa marka ma waxaan ka hadlaynaa ma Hargeysa iyo maamulka jiraan ka hadlaynaa ma Garowe ka hadlaynaa ma Gaalkacyo iska soo jeeda ka hadlaynaa ma Kismaayo ka hadlaynaa ma Baydhabo ka hadlaynaa ma Xamar ka hadlaynaa intee ka hadlaynaa hadda adigoo aqoonyahana miyaad leedahay Soomaali midaysan caalamka uu yaqaan ma jirto laba u kala qaadaynaa political sovereignty waxa la dhaho qaanuun ahaan
dalka Soomaaliya waa sax waa qoran yahay Soomaaliya nimana adduunyadan ku dagaalamay waa kala adkaadeen dawladaha adduunka u sameeyeen Soomaaliya waxay kamid tahay dawladaha nimankaas awoodda ay sameeyeen oo la sameeyay 1960kii dhulkeeda iyo badeeda iyo cirkeedana waa cabiran yahay Soomaaliyana dawlad niman ka socda baxay jimciyadda quruumaha ay tageen 20kii September 1960kii ay soo saxiixeen xeerka jaartarka oo UN-ka dhinacaas waa ku jirnaa oo waa ka diiwaan gashannahay sharci ahaan laakiin gudaha marka la yimaado wax kala ka jira Soomaaliya waxay ka dhigan tahay dhul adiga aad leedahay ka soo qaad Muqdisho Jowhar Marko Balcad meesha doonto ku lahaw dhul adiga aad leedahay oo ku cabiran oo warqad aad haysato milkiyada adiga aad iska leedahay azhari ah laakiin beerna aan ku ahayn gurina oo kaaga dhisneen bakhaarna kaaga dhisneen oo xoolaha iska marmaraan waa habeenkina bisadaha iyo mukulaalaha soo galaan ka baxaan dhulkaas amal waayo Soomaaliya tadateed su'aasha ah aleeda wala xalisiya yaad ula jeedaa Soomaaliyadiiba lama haayo oo la xisaabi lahaay oo is xisaabi lahayd dhawaan waxaa dhacay diyaarad ay leedahay Russia ayaa waxay ku xadgudubtay xuduudda Turkiga 17 second ay ku jirtay kaliya 17 second Turkiga diyaarada dhulka soo dhigtay dawladda waa taas dawladda taas la xisaabi kartaa haddaan u soo laabano mawduuceena Soomaaliya muddo ayaad ku nooleed burburkii ka hor burburkii kadib iyo haddeertaan oo dawlad federaal noo jirto adigoo kaashanaya aqoontaada maxaad is leedahay Soomaaliya way ka jiraan sirtuna halkay ka qorunsan tahay waa ku sheegay waxay sirtu ka qorunsan tahay dalka Soomaaliya marka xaqiiqada laga hadlayo waxa xaqiiqada marka laga hadlayo dawladda qaanuun kama dhalan hore uga ma dhalan dawlad ku shaqeysa qaanuun ha ahaado mid muslim iyo mid dhaqan iyo mid laga keenay Yurub dawlad qaanuun ku shaqeysa Soomaaliya kama dhalan ba asal ahaan markasta Soomaaliya waxa ka jiray xukun qarqoosh ah meeshana waxa wadankan 30 sano wadankan dawlad ku sheeg oo ahay 30 sano 10 sano amal niman shacbiyaha joogay oo civiliana dadka Soomaaliyeed dawlad ma aqoonba way iska joogeen wixii lacag siiyay macaawin iska kala qaadan jireen niman askar ah yimid musuqmaasuqay ahaayeen yiraahdeen waxa si raadiya ka sheegeen ayagoo dadka been u sheegay wixii ay sameeyeen boqol u jibaarkoodii sameeyeen dadkana qoriyo ku haysteen kadib shacbiga qoriyay la qaatay waa laga qoriyo badiyay meeshana waa lagu kala tagay wixii dawlad ku sheeg ahayna ayay raaceen marka dalkan dawladu kama dhalanba marka wax aad u tiraahdo Soomaaliya birisamaad ahayd ma jirtaba Soomaaliya birisamaad ma soo marin it was a just open jail xabsi furnay ahaan jirtay oo askartu geesaa qori kala rogaan wax kale ma ahayn wax oo birisada ma jiro Soomaaliya inay xabsi tahay maxaad ku cadeynaysaa inay xabsi tahay waxa ku cadeynaya qofka bini aadmiga ah wax ugu horeeyo oo xaq Ilaahay u siiyay oo dabeecad ay tahay inuu leeyahay xorriyad at-ta'abbud qofka inuu Ilaahay caabudi karo dadka Soomaaliya waa loo diiday qofka Soomaaliga inuu leeyahay xorriyat al-qawl inuu hadli karo dadka Soomaaliya waa loo diiday qofka Soomaaliga inuu leeyahay xorriyat at-tamalluk inuu wax yeesho dadka Soomaaliya waa loo diiday marka haddii inaad Ilaahay caabudi lagu diiday haddii lagu diiday inaad hadasho lagu diiday haddii lagu diiday inaad xoolo yeelato lagu diiday meeshaas birisamaadka ma jirin xabsi furnay Soomaaliya ku jirta dadkina markay xabsiga ku jiri waayeen albaabada jabsadeen waa kala carareen midna waa kala maqan yihiin xabsi furan ma waxaad ula jeedaa maamulkii kale taliska xasan sheekh imaamka maamulka kale talisa wuxuu ka jiraa wadamo fara badan oo ku yaala caalamka wadamadaasna waxay ku tilaabsadeen horumar ballaaran Soomaaliyana uguma horeyso wadan uu soo maray maamulka kale talisa ama dawlad kale talis ah soo la isma dhihi karo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa fahmi waayay maamulkii xilligaas ka jira Soomaaliya horta taariikhda dib u laabo haddaad aragto dawlad oo kale talisa in muddo ay jiraysaa aakhiritaanka waa la kala cararaa taariikhda cusub waxa ugu xoog badnaay oo adduunka soo maray oo kale taliyaha midowga Soviet waa loo kala cararay meel kasta oo xukun kale taliya ka jirana ama waa loo kala cararay ama waa loo kala carari doonaa tusaale ahaan dunida carabta oo dhawaan dhigi jireen saw malah oo nugu qosli jireen hadda maxaa ka socda Suuriya maxaa ka socda Ciraaq maxaa ka socda Yemen maxaa ka socda Libiya maxaa ka socda kuwa kale ee soo socda maxaa ka imaan doon adeer taariikhda bini aadmigu hal sano iyo 2 sano iyo 10 sano iyo maaha xukunna faasid ah waxay jiri karaan 100 sano 200 sano 300 sano
aakhiritaanka waa loo kala cararaa marka ha u malaynin xukun faasid ah inuu jiri karo haddaad aragto adduunka horta marka intaan joogno xukun oo boqolkii boqol oo nasiha ma jiro laakiin waxaa la fiirinaa muqaarana waxaa lagu samaynaa xukunku inta uu hufan yahay iyo intuu musuq maasuq yahay haddii uu helo boqolkiiba 51 hadduu helo oo hufnaana laakiin 49 oo qashina oo wato waa soco karaa laakiin markii ay boqolkiiba 51 ay noqoto wax isdib marin 49 ay noqoto hufnaan xataa waa duma iska dhaaf anaga keenna wuxuu ahaaba 99.99 oo ayda doorashadeena oo kale oo ahaa jira siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanadu marka ay dalka dib ugu soo laabtaan isla markaasina ay ku hungoobaan hankoodii siyaasadeed ama xilalka ay raadinayeen ay waayaan waxay eedeeyaan maamulka markaas ka jira dalka soo isma dhigi karo aqoon-yahanada iyo siyaasiyiintu waxay horseedayaan burburka ka jira Soomaaliya okay maanta waxaa muuqata inaad aqoon-yahan u soo jeesatay oo weerar ku tahay marka bulshada ama beesha aqoon-yahanka inaan difaacaad rabtaa laakiin ma difaacayo waxaan u difaacayn ayda nafsadeeda waxay noqonaysaa beel asal ahaan su-aashu waxay tahay aqoon-yahan waa kuma asagiftiisa su-aal imaanaysa aqoon-yahan ma ninkii waxna qora waxna akhriya ayaa aqoon-yahan ma ninkii shahaado jaamacad haysta aqoon-yahan ma ninkii master haysta aqoon-yahan ma kii PhD ah ma kii professor ah ayda nafsadeeda ma xadidna laakiin waxaan ka soo qaadaynaa aqoon-yahan waxaan ka soo qaadaynaa ama sida af Soomaaliga waxaa ka fiican dhaho dheergara ninka gara kara dhibaatada soo socota berito maanta dhib ma jiro laakiin waxay imaanaysaa berito horta ninkaas aqoon-yahan Soomaaliya kuwaas kuma badna laakiin dad waraaqa badan haysta waa buuxaan laakiin waraaqaas wax macnaa ma laha sababtu waxay tahay carabta waxay tiraahdaa acrif carabta waxay tiraahdaa absat qawaacid alxukmi macrifatu liman taji an taxkum xukunka inaad xukunto waxa ugu horeeya oo ugu muhiimsan inaad taqaanid dadka aad xukumaysid aqoon-yahanka Soomaaliga marka ma jaamacadu inta tagay oo ku soo qaatay PhD physics iyo mid kale wuxuu ku soo qaatay baydaryada iyo mid kale wuxuu ku soo qaatay qaanuunka oo Talyaaniga mise dadka oo raba inuu xukumo oo dalkiisa iyo dadkiisa ayuu aqoon u leeyahay haddaad leedahay ninka Soomaaliga ee Georgetown University ka soo qaatay law ka soo qaatay qaanuunka badaha ka soo qaatay ama qaanuunka oo ka soo qaatay samada ee Soomaaliya yimaade wax kama keeni karo laanu qaanuunka uu soo bartay kama shaqeeyo Soomaali marka aqoon-yahan marka ma bahaba haysaga la Mareykankiisa oo ma waxaad leedahay cilmiga ka jira Soomaaliya waa in dheergaradnimo ma dheergarad aqoon ma aha ee waa sifo aqoon actually waxaan ka wadaa macnaha ninka aqoonta leh ee la rabo inuu aqoon-yahan yahay la dhigi karo waxaa waaye ninka fahmi kara si saxa u fahmi kara shalay wixii qaldamay maanta waxa qaldan iyo birita meeshay ku socoto oo ka bixi kara tala iyo tusaale ninkaas aqoon-yahan waxaa la dhaho dheergarad intellectualism la dhahaa aragtida fog dad kale ee nin warqad wata oo dhahay jaamacadan ka soo baxay kaasi ma aha aqoon-yahan ma xasan sheekh muddo ayaa dalkii joogtay haddana waad ka timid sax waa waxaan u dhunduleeshaa siyaasadda iyo madaxda dalka musuqmaasuqi kugu yaabka badnaa ee intii aad dalka joogto aad aragtay hal iyo labo mana la wadaagi kartaa actually bismillahir rahmaanir horta de aniga musuqmaasuq wuxuu ii soo maray aniga ii soo marayn anigu xoolo ma qabo oo leegama musuqmaasuqaayo xil iyo jaga aan haysto oo leega musuqmaasuqana aniga ma jirto laakiin dadka Soomaalida markaa fiirisay waxay qabaan aragti ah inuu ka jiro dalka Soomaaliya la socyaa aniga Soomaaliya waxaan u aqaanaa Soomaaliyadu guuda u aqaanaa dadka u yaqaana Soomaaliya xamar anigu kuma jiro aniga xamar Soomaaliya waxaan u aqaanaa loogi cadde qardho qandala eel badhaadhe jamaame jilib luuq doolow baardheere dhulkaas beledweyne dhulkaasan anigu waxaan u aqaanaa Soomaaliya dadka u yaqaana Soomaaliya xamar aan Muqdisho anigu kuma jiro dhulkaas dadka jooga marka dhammaantood ee Soomaaliyeed maanta way cadiban yihiin waxay u cadiban yihiin aragtidooda ayaa kala baahsan waxaana kala baahinaya dad oo sheeganaya inay yihiin ama dhergarad ama ay yihiin hoggaan ha ahaada hoggaan dhaqan hoggaan diin hoggaan dhaqaale hoggaan siyaasadeed dadkaasaana kala dilaya
marka dadkaas ayaga asal aan waxay waxa loo inaan nuqbada ama elite English lagu dhaho dalka Soomaaliya si kale hadii loo dhigo dhibaatadiisa dhibkaas waxa kamid ah koo horta inuu qaanuun lahayn labo inuu elite lahayn ama nuqba ama dad ilgarad oo isku ujeeda inuu san lahayn marka dadka Soomaaliyeed haddii kale maqan yihiin dalka Soomaaliya waa maqaya waana khalad si fiican isaga fiiri haddii aan u fahamno muqdisho inay Soomaaliya tahay waxaan dhuminaynaa ama aan ka habaabaynaa inaan si sax u sheegno dhibaatada haysata dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya meesha ka joogaan xasan sheekh Soomaaliya waxaa ka jirta dowlad federaal ah sidaan wada ognahay waxayna qaateen Soomaalidu federalismka adiga ka aqoon yahan ahaan maxaad ka aaminsan tahay nidaamka federalismka sideena u aragtaa maamulada faraha badan ee maalinta ka dambaysa ku soo badanaya Soomaaliya okay marka waxaan ku sheegaa horta erayga federal horta waa af Ingiriis waa af Soomaali ma ah waa inaan raadinaa marka Ingiriisku wuxuu asalkiisu wuxuu ku ahay waxa dadka iska u jeedaan asalkaas waxa waaye macna fara badan ay galfada u leeyahay laakiin waxa waaye dadku in ay yeeshaan xukun aan centralized ahayn oo anaga sidii kii askarta Soomaaliya aan ahayn oo dadka ay gobollo yeeshaan adduunyada wuxuu ka jiraa xukunkaas federalismka wuxuu ka jiraa Mareykanka waa federaal Canada waa federaal Ingiriis waa federaal Jarmal waa federaal Malaysia waa federaal Russia waa federaal taas waxay cadeynaysaa wadamada adduunyada ugu nolosha fiican oo qof kasta oo Soomaaliya uu rabo inuu ku noolaado waa federaal saas darteed Soomaaliya inay noqoto dal federaal ah danaaba noogu jirto saasaan u barwaaqoobaynaa laakiin arrin ma jirto muhiim dad Soomaali ayaa waxay rabaan inay federaalka ka dhigaan jifo iyo jilib maya isma qabtaan federaalku waa aragti siyaasi ah aragti siyaasiya uma soo hogaami kartid aragti qabiil iyo dan qabiil marka waxaa la rabaa waliba dhibaato jirta waxay tahay ognahay anaga Soomaaliya waxa ogahay kuwa ku qaylinaya oo dhahaaya federaalka la diidan yahay laakiin dibka jira wuxuu yahay ayaga wuxuu raasho iyada cunayso cabaadaysa ayaga nafsadooda ayaa waxay ka soo horjeedaan federaalki sababtu waxay ka dhigayaan federaal beeleed haddaan noo jilciso ayaga yaa ula jeedaa dadka Soomaalida waa isdhaqaana Soomaalidu u jeedin markay idaacadaha ka hadlayaan markay meelaha ka hadlayaan marka laga hadlayo federaalka laga hadlayo yacni maamul goboleedyada okay Allah yaftah عليك ayaga waxay ku leeyihiin maamul lama sameeyo hayo federalismki ayagana ka soo horjeeda federalismka لأنه federalismku waxa inuu ahaado aragti qaran waxay ka dhigeen aragti beeleed number 2 waxa jiro kaleeto waxa kaloo jira beelo ay la tahay inuu na fiicneen federalismka oo Soomaaliya kamid aan waficna iyagoo u fiican yahay federalismka horta asal ahaan federalismku waa nidaamka ugu fiican oo Soomaaliya inay qaadato ay tahay laakiin ma aha federalismka in la beeleeyo ma aha ninka beeleeya federalismka ninka beeleeya asaga ka soo horjeeda federalism ceebna waxaa noogu filan haddaan nahay dadka Soomaaliya haddaan nahay waliba kooxda wax barata waxaa noogu daran oo noogu liit oo noogu folxun qaar anaga nagamida oo intay dib tagaan wax soo barteen oo gudaha tageen oo xil loo dhiibay oo magaca Soomaaliyeed intay qaateen jamciyadda qurumaha tagay oo ku adduunyada magaca Soomaaliya kula hadlay ayaa hadda dhahay haddaan reer quracnahay reer qasax nooma imaan karaan waxaas waa ceeb waxaas federalism ma aha federalism dadka Soomaaliya waxaan u sheegayaa waa nidaamka ugu fiican ee adduunyadu ay ku dhaqanto waxaana cadeynaya dadkeena wiilasheena iyo gabdhaheena badda ku dhimanaya wadamada ay u cararayaan oo ay rabaan inay ku noolaadaan waa federalism sida ayagu ay u yihiin federalismka oo kale aan qaadan su'aasha ugu dambaysa sidee looga bixi karaa musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya maxaadna kula dardaarmi lahayd ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa okay actually musuqmaasuqa waa sheegno waxaan dhahnay waa maamul xumo iyo wax isdamarin hal xaaja ma aha maamul xumo iyo wax isdamarin waxaan uga bixi karnaa horta marka hore inaan ku qanacno oon aqbalno ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkan inuu nagu abuuray aan ku qasbanahay inaan isla noolaano sida ummadaha guud ah isla nool yihiin oo markaas aan sameeyno waxa la dhaho political agreement heshiis siyaasadeed
qaanuunna aan qoranno qaanuunkaasna la ilaaliyo oo la joojiyo kana saar kana siib ama afatu'minuuna bibacdi alkitaab watakfuru bibacdin qaanuunka markii oo aniga qaybta oo faqrada aniga ii qusaysa b na aan kor u qaado haddii adiga c ku qusaysan aan hoos u dhigo oo aniga inta dastuurka barbaaro meelaha aniga iga anfacan ka soo qaato meelaha aan anficino adigu anfacna adiga aan kugu celiyo saas dawla ku noqomayno dawlad si aan u noqono waxaa la rabaa inaan is aqbalno awalan inaan isku qasbannahay inaan isla noolaano isku qasbanaantaasina ay nagu hogaamiso inaan is ogolaanona ay nagu hogaamiso inaan qaanuun aan wada ogolnaha aan yeelano qaanuunkaasna aan wada ilaalino aan ku wada hoos noolaano saasaan uga bixi karnaa laakiin intii ka horeysa heer qurax heer qansax kama geel fiicna kama geel badna ceelkoodana ceelkooda kama biyi badna kamana warba badna kamana aakayaal badna saas lena baasho aanaysaa marka si arrinka looga baxo waxaa la rabaa soomaaliyey dalka jaynaha 1.2 bilyan waaye hal maamulay leeyihiin hindiya 1 bilyan waaye hal maamulay leeyihiin adduunya america 300 milyan iyo 10 milyan waaye hal maamulay leeyihiin waana waddanka adduunka uga xooga badan hal maamul aan yeelano oo asiguna ku shaqaynaya qaanuun lama rabo inuu qor nagu xukumo hal maamul oo anaga qaanuun aan heshiis ku nahay haayo oo nagu ilaaliya aan samaysano si aan sharaf ugu yeelano adduunyada haddii kale mar kasta ayadoo leeyahay waa burcadbadeed waa baahan yihiin waa argagixiso waa isqarxis ayaa sawiradeena waxay ka soo baxayaan idaacadaha waaweyn BBC CNN iyo Aljazeera markaasna haddaad tahay Soomaali foolxumada soo baxday wejigay kaa saaran tahay kaama saarayso inaad heer qurax tahay inaad heer qansax tahay inaad ka timid waqooyi inaad ka timid bari Soomaaliya tahay adduunkuna Soomaaliya ku yaqaanaa aad ay u mahadsan tahay xasan sheekh imaamka waqtigaada quruxda badan aad nasiisay waan kaaga mahad celinaynaa haddana ana Soomaali Cable daawadayaal intaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkii kala fadhi oo toddobaadkan uu martiina u ahaa aqoon-yahan xasan sheekh imaamka intaynu barnaamijkan oo kale dib hawada u kulmi doono waa bahweynta Soomaali Cable oo idinkaga tagay sidaas iyo nabadgelyo